xidhiidhka legdinka iyo qalaamirogodka ee Somaliland oo ka tirsan wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha Jamhuuriyadda Somaliland ayaa wadada halbowlaha u ah magaalada Hargeysa ku soo bandhig masraxiyeed ay kaga wacyi gelinayaan dhalinyarada aafada balwadaha tahriibka iyo dhaqamada xunxun bandhigaasi way ku soo bandhigeen wadada halbowlaha u ah magaalada Hargeysa iyagoo ku maraya socod waxaana ay halkaasi ku soo bandhigeen ciyaaraha fudud ee legdinka iyo qalaamirogodka iyo waliba ciyaaro kale waxaana bandhigaasi kala soo qayb galay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Jamhuuriyadda Somaliland iyo xubno ka tirsan wasaaraddaasi markii uu soo dhamaaday kulankaasi ayaa waxa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha xidhiidhka legdinka iyo qalaamirogodka ee Somaliland Cabdiraxiin Sheekh Cali Maxamed Farcade waxaana uu ka waramay ujeedada ay u qabteen bandhigani waxaan salaamayaa wasiirkayga cusub ee maanta nagala soo qadgalay barnaamijkan aanu ku soo dhultusinay inaan la dagaalano qabyaaladda iyo tahriibka iyo jahliga iyo isdhexgalka dhalinyarada bulshada ayaana u magac darnay wasiir waad mahadsantahay waxaan ku sheegaynaa wasiir inaanu nahay xidhiidh rasmi ah oo ka jira wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha oo la yiraahdo Jido and Gymnastics waxaan maanta wasiir ku sheegaynaa inaanu maanta 2 bilood 3 bilood masaariif aanu qaadinaa aanu ururinay inaanu maanta go'aansanay inaanu bandhiga ugu sameeyno aanu dhalinyarada tusmo ciyaaraha qalaamirogodka aanu soo bandhigi doono dhalinyarada Somaliland waxaan leeyahay ha isku tashadaan yaani cid ka sugin maskax la kaalaya ninka gaariga sameeyay ama ninka diyaaradda sameeyay waa nin lamida nin walba waxaan ka doonayaa maskaxina la timaadaan inaad dawladdiina aad caawisaan maskax la timaadaan aan isku tashataan ilaahay isku xidhaan geesta kalena waxa iyaguna halkaasi ka hadlay xubno kamid ah wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Jamhuuriyadda Somaliland kooxdan xidhiidhka judoga ee ka diiwaan gashay wasaaradda aad iyo aad baan ugu hambalyeeynaa xidhiidhkaas sida ay u soo qaban qaabiyeen hawshooda dadweynahana waxaan ka codsanaynaa inay taageeraan ciyaaraha kala duwan ee dalkeenna ka hana qaadi doona ee ay la timid aragtidan ka duwan aragtiyii hore dawladdan cusub ee Jamhuuriyadda Somaliland oo hogaaminayo Mustabiix Cabdi madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland iyo wasiirkiisii oo maanta halkan nala jooga injineer Yuusuf Mire Maxamed oo aad arkaysaan inuu dhiirigelinayo dhalinyarada kana soo qayb galay kulankan aynu maanta isugu nimid boos Mire Maxamed wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Jamhuuriyadda Somaliland oo gabagabadii halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in ka wasaaradahan ay dhiirigelinayaan ciyaaraha fudud isla markaana ay sii wadi doonaan koruqaadka iyo dhiirigelinta dhalinyarada Jamhuuriyadda Somaliland ee sportska halkan waxaan u joognaa dhiirigelin dhalinyarada dhiirigelintu aniga waa shaqadaydii laakiin waxa weeyaan amarka madaxweyne Mustabiix Cabdi oo u heegan dhalinyarada inuu wax u qabto dhalinyarada first priority sida amarka madaxweynaha iyo anigoo mas'uuliyadeedii gudanayaan oo meesha ku nimi dhalinyarada waxaan uga faa'iideysanayaa halkan kelmad waxa tiin xoogga wadanka wax ka bedelkiisii dawladdiina way jirtaa wadanka idinka kale 70% baad tihiin mustaqbalkiina baa laga shaqaynayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mustabiix Cabdina way ka go'an tahay iyo dawladdiisa iyo xisbigiisa inay la shaqeeyaan dhalinyarada waa markii ugu horeysay ee bandhig noocan oo kala lagu soo bandhigo wadada halbowlaha u ah magaalada Hargeysa iyadoo indhaha shacabkana ay soo jiidatay bandhigan ay soo bandhigeen xidhiidhka legdinka qalaamirogodka ee Jamhuuriyadda Somaliland oo ka tirsan wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha waa Xamse Qurbaani warbaahinta qaranka Somaliland caasimadda Somaliland ee Hargeysa